kulan wanaagsan idil ahaantiin daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal mar kale iyo waliba barnaamijkeeni jiraayada ama wargeysadu waxay qoraan oo saacadahan oo kale aad ka daawataan shaashada telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawana daawadayaal xubnaan isleenahay waxay raali gelinayaan daawadayaasha ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkan isaga haddii aan daawadayaal soo qabto xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysadii habeenkan caawa ayaa daawadayaal waxa wax ka qoray wargeyska Somaliland Today wuxuuna ku soo qaatay tirsigiisii maanta soo baxay waxaan uu dhigay Somaliland oo heshiis la gashay shirkad laga leeyahay wadankaasi Yemen oo Somaliland ka bilaabaysa hawlaha shidaalka amaba sahaminta shidaalka haddaba daawadayaal wargeyska Somaliland Today isagoo amurtaasi eegaya waxa uu yiri wasaaradda tamarta iyo macdanta Somaliland ayaa si rasmi ah heshiis shidaal baadhis ah ula saxeexatay shirkad lagu magacaabo Ansan Wikifis oo laga leeyahay dalka Yemen taasoo ka hawlgasha wadamo badan oo caalamka ah xafladaasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda gudoomiyaha guddi hoosaadka kheyraadka ee golaha wakiilada saraakiil ka tirsan wasaaradda iyo maamulka sare ee shirkadaasi heshiiskan dhinaca xukuumadda Somaliland waxa uu saxeexay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Engineer Xuseen Cabdi Ducaale halka dhinaca shirkadda Ansan Wikifis ay u saxeexeen gudoomiyaha shirkadaasi Shaahid Cabduhaak iyo ku-xigeenkiisa Hashim Al-Maliki Engineer Xuseen Cabdi Ducaale wasiirka tamarta iyo macdanta oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay aad u soo dhaweynayaan fursadan maalgashi ee lagu baarayo shidaalka dalka taasoo uu tilmaamay in ay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana golaha wasiirada Somaliland ay ansixiyeen heshiiskaasi oo la soo gunaanaday dhamaystirkiisa bishii August ee sanadkan wasiirku waxa uu intaasi ku daray in shirkadda Ansan ay tahay shirkad caalami ah oo meelo badan oo adduunka ah ka shaqeysa isla markaana ay ka hawlgali doonto saddexda bogcadood ee lambaradoodu kala yihiin block 19 block 14 iyo qayb kamid ah bogcadda lagu magacaabo 7 kuwaasoo dhammaantood ku yaala gobolada bariga dalka Somaliland wasiirku waxa uu xafladaasi ka sheegay in shirkadda Ansan Wikifis ay bixisay lacag dhan $1,800,000 oo dollarka Mareykanka ah oo ah lacagta loo yaqaan xaqul qalinka taasoo si toos ah ugu dhacaysa qasnada dawladda isla markaana xukuumaddu u qoondeysay in lagu horumariyo deegaanada lagu baarayo shidaalkaasi ee shirkaddu ay ka hawlgali doonto gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Ansan Wikifis Master Hashim Al-Maliki oo ku hadlayay magaca shirkadda ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan heshiiska ay la saxeexdeen Somaliland isla markaasina ay ku dadaalayaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen mashruucaasi baadhista shidaalka dalka isagoo tilmaamay in ay adeegsan doonaan qalab casri ah wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeynta Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo gudoomiyaha guddi hoosaadka kheyraadka golaha wakiilada xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi oo si wada jir ah halkaasi uga hadlay ayaa tilmaamay in ay soo dhaweynayaan heshiiska oo ay ku tilmaameen inuu yahay fursad maalgashi oo dalka u soo kordhay waxaana u soo jeediyeen shacbiga Somaliland gaar ahaan kuwa degan gobolada bariga ee laga baarayo shidaalka in ay la shaqeeyaan hawlwadeenada shirkadaasi haddii aynu daawadayaal intaasi kaga nimaadno xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysyada iyo habeenkan caawa xubinta labaadeen daawadayaal ku soo qaadan doono ayaa waxa ay tahay madaxtooyada Somaliland oo soo dhaweysay heshiiska xisbiyada qaranku ay ka gaadheen dooda qaran sheegtayna in ay xukuumaddu ka qayb galayso garteedana ka akhrisanayso haddaba daawadayaal sidaasi waxaa qoray wargeyska Saxan Saxo isagoo ku soo qaatay cadadkiisii maanta waxaanu u dhigay sidan madaxtooyada Somaliland ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso shirka dooda qaran ay xisbiyada qaranku ku heshiiyeen in la qabto oo ay hogaaminayso akademiyadda nabadda ee Somaliland afayeenka madaxtooyada Somaliland Axmed Saleebaan Dhuxul ayaa sheegay inay xukuumaddu soo dhaweynayso heshiiska ay xisbiyadu ku gaadheen shirka dooda qaran isla markaana ay xukuumadda Somaliland ka qayb gali doonto oo ay doodeeda ka dhiban doonto shirkaasi dhageysan doonto Axmed Saleebaan Maxamed Dhuxul oo xalay khadka telefoonka ugu waramayay wargeyska Saxan Saxo ayaa sheegay in wax kasta oo ku saabsan ummadda isku soo dhaweynteeda jiritaankeeda dimuqraadiyadda iyo waxtarka oo ay xukuumadda Somaliland hormuud ka tahay waan soo dhaweynaynaa ayuu yiri waxa aynu ku dhisanahay asxaab shacab iyo golayaal muddadii ay Somaliland jirtayna waxa halkan lagu soo gaadhay in la is qanciyo in arrin kasta oo timaada ay is afgarad ku soo gabagabowdo waa dhaqan iyo caado ay shacabka reer Somaliland leeyihiin afayeenka
madaxtooyada Axmed Salebaan Dhuxul oo wargeyska saxansaxo uu hadalkaasi ka soo xigto isla markaana hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri xukuumadda Soomaaliland way soo dhaweynaysaa waanay qiimeynaysaa wax kasta oo la isugu yimaado ee ku saabsan horumarka dalka xukuumaddu iyada ayaa mas'uul ka ah amniga dalka iyo horumarkiisaba waxaanay soo dhaweynaysaa fikrad kasta oo ka timaada xisbiyada mucaaradka ah iyo bulshada oo waa xukuumad dhageysanaysa si ay arintu u noqoto wax aynu wada leenahay marka waa tallaabo ay xisbiyadu gaadheen oo waan soo dhaweynaynaa Axmed Salebaan Dhuxul waxa uu ugu dambeyn sheegay in xukuumaddu ka qayb gali doonto shirkaasi oo ay doodeeda ka dhiban doonto isaga oo wargeysku ka soo xiganaya afayeenka waxa uu yiri xukuumaddu qayb muhiim ah ayay ka tahay oo hawl kasta iyada ayaa hogaaminaysa mas'uuliyadeedana qaadaysa marka xukuumadda Soomaaliland way ka qayb galaysaa oo way dhageysanaysaa waxaanay ka dhiibanaysaa garteeda haddii ay ka soo baxaan wax muhiim ah oo dalka wax u tara waa wax insha Allah lagu dhaqaaqi doono cidda qaranka hogaaminaysa waa madaxweynaha Soomaaliland oo isaga ayaa hogaaminta leh markii hore sida ay xisbiyada mucaaradka ah u soo dhigeen may jirin xaalad iyo sabab keenaysa isku imaatin cidda arintaasi lehina waa madaxweynaha Soomaaliland oo sharcigu siiyay waana wax Soomaaliland u dan ah oo wax taraya shirkan dooda qaran ee saddex xisbi ay isku raaceen ayaa waxa la filayaa in dhawaan uu ka qabsoomi doono magaalada Hargeysa ee Soomaaliland iyadoo ay dhexdhexaadinayso akademiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland wargeyska ogaalna waxa uu wax ka qoray maamulka gobolka Togdheer oo dhagax dhigay saldhig boolis iyo xafiisyo cusub oo laga hirgelinayo gobolkaasi Togdheer gaar ahaan magaala madaxdiisa Burco haddaba daawadayaal wargeyska ogaal isagoo amuurtan qaada dhigaya waxa uu ku bilaabay maamulka gobolka Togdheer ayaa dhagax dhigay saldhig boolis iyo xafiisyo lagu talagalay inay ku shaqeeyaan dawladda hoose oo laga hirgeliyay degmada Waraabeeye ee gobolka Togdheer waxa la sheegay inay dhisayaan qurbajooga u dhashay degmadaasi gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji maayirka degmada Burco mudane Maxamed Muraad maayir ku xigeenka Maxamed Xasan Xoday taliyaha qaybta booliska gaashaanle sare Axmed Xasan Ilkacase gudoomiyaha degmada Waraabeeye Axmed Diriye bugle xildhibaan Farxaan Cabdi aw xirsi iyo mas'uuliyiin kale oo badan isla markaana waxay halkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan waxaanay ku dheeraadeen baahida degmada Waraabeeye u qabtay saldhigga la dhagax dhigay iyo xafiisyadan kale ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Waraabeeye Axmed Diriye Budle inay muhiim u tahay degmada xafiisyadan in loo dhagax dhigay waxa kale oo isaguna halkaasi ka hadlay rasaabka gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo soo dhaweeyay horumarada laga bilaabay degmadan sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi dhagax dhigga ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad taliyaha qaybta booliska maayir ku xigeenka iyo madax kale oo ku wehelinaysay socdaalka wafdigan waxaanay dhammaan tilmaameen taariikhda weyn ee ugu fadhida degmada Waraabeeye dalka Soomaaliland iyo gobolka madaxweynaha FIFA oo sheegay in Cristiano Ronaldo uu ka qayb qaadan doono xafladda Ballon d'Or-ka sidaasi daawadayaal waxaa qoray wargeyska ogaal waxaana isagoo amuurtaasi eegaya uu ku bilaabay madaxweynaha kubadda cagta adduunka FIFA ee Joseph Blatter ayaa shaaca ka qaaday in Cristiano Ronaldo uu ka soo qayb gali doono xafladda lagu bixinayo bisha January FIFA Ballon d'Or 2013 waxa soo baxay warar sheegayay in laacibka Real Madrid ee Ronaldo uusan ka soo xaadiri doonin xafladda FIFA Ballon isagoo ka careysan hadallo uu hore u sheegay madaxweynaha FIFA Blatter bishii October ee la soo dhaafay Ronaldo waa uu soo xaadiri doonaa xafladda ayuu yiri Joseph Blatter mar jariidada AS ay ku weydiisay magaalada Marrakesh ee uu ka socdo Club World Cup in Ronaldo uu ka soo xaadiri doono xafladda Ballon d'Or toddobaad dhawaa ayay ahayd markii laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu sheegay in aanu weli go'aansan ama go'aan rasmi ah ka gaadhin inuu tagayo magaalada Zurich oo lagu qaban doono xafladda Ballon 2013 iyo in kale Pep Guardiola oo hogaaminaya liiska dadka amaba tababarayaasha ugu mushaharka badan kubadda cagta daawadayaal sidaasi waxaa qoray wargeyska Somaliland Today isagoo bogiisa ciyaaraha ku soo qaatay waxaan u dhigay sidan daawadayaal tababaraha ku guuleystay 2 Champions League 3 La Liga 2 Copa del Rey isla markaana hadda hogaaminaya kooxda Bayern Munich Pep Guardiola ayaa hogaaminaya liiska tababarayaasha ugu mushaharka badan dunida kubadda cagta maamulaha kooxda reer Germany ee Pep Guardiola ayaa mushahar ahaan u qaata sanadkii
hanti gaadhaysa 14.8 milyan oo gini. Jose Mourinho oo hogaamiya Chelsea ayaa kaalinta labaad ku jira isagoo akoonkiisa ku arka 8.73 milyan oo gini sanadkii, halka tababaraha kooxda reer China Marcelo Lippi uu sanadkii ka qaato 8.34 milyan oo gini, taasi oo ka dhigaysa in uu yahay macalinka saddexaad ee ugu mushaharka badan dunida kubadda cagta. Arsene Wenger maamulaha Gunners-ka ayaa kaalinta afraad ku fadhiya isagoo qaata 6.89 milyan oo gini sanadkii, laakiin tababaraha kooxda West Ham ayaa si la yaab leh ku soo galay kaalinta 13aad isagoo ka soo hormaray tababarayaal waaweyn oo magac ku leh kubadda cagta dunida. Liiska tababarayaasha iyo mushaharka ay qaataana waxa uu u dhigan yahay sidani: 1 Pep Guardiola Bayern Munich 14.8 milyan, 2 Jose Mourinho Chelsea 8.73 milyan, 3 Marcelo Lippi 8.34 milyan, 4 Arsene Wenger Arsenal 6.89 milyan, 5 Fabio Capello Russia 6.51 milyan, 6 Carlo Ancelotti Real Madrid 6.26 milyan, 7 David Moyes Manchester United 4.92 milyan, 8 Tata Martino Barcelona 4.5 milyan, 9 Jurgen Klopp 3.59 milyan. intaasna daawadayaal waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii wargeysadu waxay qoraan oo saacadahan oo kale aad ka dheehataan shaashada telefishanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. barnaamijkan daawadayaal isaga ee aad daawanayseen waxaa soo saaray Maxamed Ibrahim Dimbil, waxaana codeeyay isla Maxamed Ibrahim Dimbil. waxaa idin soo jeedinayay anigoo Jamaal Axmed Naasir. kamaradaasi iyo lightinka quruxda badanna waxaa qaaday Foosi Axmed Cayna. barnaamijkan barnaamij lamida daawadayaal intaan iskugu iman doono dhankayga waxaan idinkaga tagayaa is aragtimo qaldan. ka hor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.